بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Een, ku xirnaaw beeraha TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ama sektarka ugu muhiimsan sektarada dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ku tiirsan tahay. Sidaad ogsoon tahay waxa waa geedka kani waxa weeye wuxuu ka mid yahay dalagyada oo seasonalka ah. waa geedka loo yaqaano masagada ama moordiga ama sargamta sorghum ama sargam sarabtu aqo. wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn. wuxuu ka mid yahay geedaha aadka u muhiimka ah oo Soomaalidu dhaqan ahaan u isticmaasho in qofka markii la kabo lagu baaniyo ay u isticmaalaan dhaqan ahaan Soomaalida. markii dhaqanka Soomaalida la fiiriyo mideeda kale waxa loo isticmaalaa xoolaha in lagu qoodiyo oo hadda sida meeshan loo isticmaalayo kale hadda waa baalkan siisana lagu gatay waa la jar rabaa xoolaha lagu qoodi rabaa intaas weey wax kale meesha ugu meeyaan. marka tan kale waxa waaye wuxuu ka mid yahay cuntooyinkan cerealska oo stable food ahaanta loo isticmaalo ayuu ku jiraa oo wuxuu ka mid yahay waxaan u maleeyahay inuu yahay kow waxa qamadiga laba briidka saddex galeyda ama meeska afar kaalta afar inuu soo ku jiray bay ila tahay dalagyada cerealka ee dunida laga beerto. marka waa geed sidaas muhiim u ah. marka waxa weeye cudurradiisu ma badna baalkaas ilka caleemaha ka cuna ayaa jiro bas waxa kaloo jiro funguskaas oo ka cuno baalka sheeg meesha miro ku yaaliin ku yaalo funguskaas ayaa jiro asna oo aad u waxyeeleeyo oo saas u madoobeynayo. labadaas haddii lagala tacaalo waxa waaye waa aad u fiicnaanaya waxa waaye baalkan uu macaan yahay. marka waxa kaloo jira oo aad u waxyeeleysa baashan la yiraahdo shimbirta marka uu soo rito gacankiisa ama waxa waaye jafkiisu soo dhaco ay aad u cuntaa dadka way ku dhibtaa xataa zaid bay ugu dhibtaa. marka shimbirtaasuna iyadana waxay ka mid tahay cayayaanada oo bahalkan aadka u dhibaateeyo oo lagala tacaalo. marka geedkani waa geedkaas muhiimadaas kale cudurradaas baa ku dhaca. wuxuu leeyahay kii sheeg aad buu calciumtiisu u badan tahay. waa sababta ay Soomaalidu ugu kabto dadka jaba ay u siiso cuntahan ugu siiso. marka waxaa laga samaystaa noocyaal badan oo cuntada laga samaystaa. waxaa laga dhigtaa mushaarida laga samaystaa. waxaa laga samaystaa asagoo caadi ah oo tooskiisa cambuul ahaan loo karsadaa. digirtoo kale inta lagu darsadaa iyadana sidaas oo kale cambuul ahaan loogu isticmaalaa. waxaa kaloo samaystaa inta la tumo oo laga dhigo jariir iyo baashan la yiraahdo iyo budo ayaa hadhowdii la isku ayimaa oo cunto waxaa laga samaystaa aad u adag oo caanaha inta lagu darsado lagu cuno aad bay u macaan tahay markaas xitaa. marka nafaqo aad u fiican ay leedahay qofka waxa waaye waxay dhisaa lafihiisa iyo muruqihiisa waxa aad uu qofku u xoogaaba marka uu baashan isticmaalo. marka waxa weeye muhiimad aad u fiican ay jirka u leedahay sida aan ku aragnay marka dadka jaba iyo waxaas la siiyo waxa waaye waa marka dalag aad u muhiim ah weeye jeclaan lahayn in lagu baraarugo sida hadda loo isticmaalo kale aan lagu sii wadin bini aadankana looga faa'iideeyo. waxaa laga samaystaa baalka la yiraahdo waxaan ku arki jiray dhulka baadiyaha iyadoo laga dubto salolka baalkan salolka la yiraahdo inta raranka lagu dubo la buuciyo marka baalkana waa la cuni jiray waa aad buu u macaan yahay. marka waa dalagyada aadka u muhiimka ku jira oo sidaas u muhiimka ah. marka noocyadaas badan baa loo sameeyaa oo la habeeyaa canjeelada laga samaysan karaa wax walba laga samaysan karaa. waxa waaye waa cunto aad u muhiim u waaye ama energy muhiim leh. marka waan rajaynaynaa in laga faa'iideysan doono sidaasna loo baro doono muhiimadiisana la ogaan doono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.